diyaaradan caalamiga ah ee Hala Airline ayaa maanta soo cagdhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Dhammaan Soomaali weyno hora loo soconaya wala soconaya hora loo soconaya wala soconaya dhammaan Soomaali weyno hora loo soconaya wala soconaya hora loo soconaya wala soconaya ku dakaya diyaaradaas. rabaa inaan u mahadceliyo xirfadlayaasha xirfadooda ku jooga la'aantoodna aynan marnaba aynan suuragali lahayn dhalinyaro yaryar Soomaaliyeed aqoon leh innagana wixii training ah oo siin karna si levelkan aan u soo gaarna aan siinay Captain Burhan ayaa kamid ah oo halkan jooga oo la'aantiis runtii aynan marnaba suuragal aynan noqon lahayn in aan maanta 6 Oscar aan soo celino suuragal ma noqon lahayn magacayga oo ah Captain Burhan Daahir Bade ahna maareeyaha qaybta operationka civil aviationka maanta waxa sharaf noo ah in aanu ku guuleysanay oo chance noo noqotay in aan noqono teamka ku guuleystay inay hirgeliyaan arinta taariikhda wadanka Soomaaliya waxa kale oo sharaf ii ah in aan noqdo hogaamiyaha arinta ka shaqeynay iyadoo na soo martay arin waqti dheer nagu soo qaadatay rafaad badan aan ka soo marnay processka aan u soo marnaa wuxuu ahaa oo ka soo bilaabmay in aan hawada Soomaaliya kala soo wareegno dalka Kenya aanu keensano wadankeena ka bacdeedna loo raadiyo dad Soomaali ah oo ka qabta shaqadaas kana macquulna ka dhiga inay hirgasho shaqada 6 Oscar waxa mahad iskale Ilaahay iga suura gashay in aan noqdo teamkii oo hawsha galay processka waxa ku xigay markaan hay'adda kala soo wareegnay inaynu Kenya keenno waxa noogu xigay inaan shuruucdii dhisno anagoo la taakulaysanayna ajaanib ka bacdeedna ay kala wareegtay team oo Soomaali ah oo iskugu jiraan kabtano operation iyo shaqaale oo xirfad iyo hang leh inta ka soko waxa suuragal noo noqday maanta in aan keensano
diyaarado ay Soomaaliya leedahay oo taariikhdooda ku buufsan yihiin 6 Oscar oo nagu qaadatay muddo bil ah inaan South Africa ka soo kaxaynteeda iyo iibkeegu ay noogu qaadatay insha Allah taala maantana waxaan ku guuleysanay xafladii furitaanka 6 Oscar waxaana mahad iska leh madaxweynaha qaranka Soomaaliya ka bacdeed waxa mahad iska leh wasiirka maareeyaha hay'adda iyo dhammaan shacabka Soomaaliya ka soo shaqeeya arinta billahi wadin Soomaaliya in la soo celiyo in civil aviation laba qaybood ayaa loo qaybiyaa oo qayb ah adeeg bixiyayaal iyo qayb ku kontrolsha in adeega sidii saxda ah sharciga waafaqsaneed adduunku ku heshiiyay in lagu bixiyo marka qaybta kormeerka sameyn lahayd Soomaaliya markii burburtay waa laga tagay jimciyada qurumaha ka dhaxaysa waxay qaadatay qaybtii adeega bixinaysay oo kaliya qaybtaas oo ah qaybta lacagta soo saarta marka Soomaaliya waxay ku khasbanaatay in qaybtii shuruucda ay develop garayso oo hadda uu agaasimo ka yahay Maxamed Axmed Cabdulle oo aayadaha Quraanka noo akhrinayay qaybta air navigation oo adeega bixinaysana Cali Jaamac Cabdi oo xiriiriye noo ah ayaa ku agaasimo ka ah marka Soomaaliya waxay gaartay in ay shuruucdeedii dhameystirto ganacsatada Soomaaliyeedna ay ku dhiiradaan in ay diyaarado soo ay iibsadaan mahadeeda waxa iskale Allah ka soo waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda markii ugu horreysay inaan u hambaliyeeyo shirkadaheena Soomaaliyeed ee Hala iyo Freedom oo ku guuleystay inay markii ugu horreysay qaataan taargada diyaaradaha Soomaaliya ay ku duulaan marka alxamdulillah waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda duulista hawada iyo qaybta aviationka oo ayaguna ku guuleystay inay bixiyaan maxaa taargada ugu horreysay ee dalkeena ay ku guuleystaan labadaas shirkadood in la siiyo 1 iyo 2 ayagana waxaan leeyahay waxa gaarteen guushii aad raadinayseen iyo meesha dadka laga rabay inuu soo noqdo magaca 6 Oscar oo Soomaaliya ay ku duuli jirtay in hawada laga maqlo oo magacaasi oo shaqeeyana annagana waxay noo tahay qarnimadeena soo noqotay sharafkeena magaceeni oo meel gaaray alxamdulillah aadan u mahadinaynaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo si rasmi ah xariga uga jaray diiwaangelinta diyaaradaha iyo rukhsadsiinta xirfadlayaasha ayaa ka sheekeeyay marxaladii ay ku sugnayd wasaaradda markii ay xilka la wareegayeen iyo isbeddelka maanta muuqda ummadda cusub la soo dhisay waxaan runtii dhaxalnay hawo Soomaaliyeed oo waddanka dibadiisa laga maamulo waxaan dhaxalnay dhaqaalihii naga soo geli jiray hawada Soomaaliya oo ku jira gacan hay'ado kala duwan oo ka tirsan United Nations waxaan la wareegnay shaqaalo Soomaaliyeed ee ajnabi isugu jira oo u shaqeeya hay'ad kale oo ka madax bannaan waddanka alxamdulillah baad arkaysid maanta hay'addu meesha ay marayso duulista rayidka meesha ay marayso maanta waad arkaysid waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaradii ugu horreysay oo rakaab ah sida maareeyaha uu sheegay rakaab qaado diyaaradii hore ee uu sheegay ee Moori uu ku duuli jiray diyaarad private ah oo dad qof qaaday diyaaradii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ee register gareyso ayaan maanta u dabaaldegay soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha 2021 waa nasiib waa farxad shirkadda ay farxad u soo tahay ambare 120 maanta laga jarayo xiriga laga jarayo oo ka jarayo wasiir Omar iyo agaasimaha Ahmed Macalin agaasimaha guud Ahmed Macalin qaybta aviationka ambareedaas 120 ambareeyo kale oo 120 ah ayaguna waa 3 kalentood ilaa middan 4 isku noqonayaan afartaas noqon doonaan gudaha waxay ka shaqeyn doonaan gudaha Soomaaliya ilaa afartaas diyaaradood diyaarad ay ahaan doonaan ambareeyo afartaas mana ay ahaan doonaan afar ambareeyo 120 Boeing 737-200 waxay ka shaqeyn doontaa Soomaaliya ilaa Afrika waxaa kale oo qorshaha noogu jira oo soo socda Airbus 320 hal xabo
airbus 321 laba xabo total 3 ay isku noqonayaan airbusyaasha waxay ka shaqayn doonaan Soomaaliya, Yurub, Afrika iyo Aasiya. Total diyaaradu waa 8 xabo. waa bishaaro aan ugu bishaaraynayno inta ku hadasha afka Soomaaliyeed in ay helaan diyaarado ay leeyihiin. waxaan u mahad celinayaa wasiir Omar iyo agaasime Axmed Macalin, agaasimaha guud Axmed Macalin iyo wasiir ku-xigeenka Omar, agaasimaha Cali Gacal, maareeyaha Cabdi Ashkir. intaas baa u mahad celinayaa insha Allah. maareeya Cabdi Ashkir, ku-xigeenadiisa Baydaruus iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee airportka oo u taagan habeen iyo maalin intaba u mahad celinaya. waxaan kaloo mahad celinayaa guddoomiyaha guud ee rugta ganacsiga Kabayre, isna waa u mahad celinaya. bahda saxaafadda waan u mahad celinaya. ugaaska guud, ugaaska dhaqanka waan u mahad celinaya isagana. dhammaan kasoo qaybgalayaasha mahadsanidin ayaan leeyahay. waxaa kaloo u mahad celinayaa shaqaalaha Hala Airline oo ayagana wax badan kasoo qayb qaatay dhisidda shirkadda. waxaa kaloo u mahad celinayaa maama Shariifa, maama la agtida qaalibka oo iyada martaba gadaal kasoo qayb gashay, ayadana u mahad celinaya. wabillahi tawfiiq. wallahi hawshaan muddo ilaa 2 sano ayaan soo daba soconay. waqtiyadii hore ma aanan helaynin inaan taargad aan helno oo Soomaali ay leedahay. waxaan ka fikiraynay inaan dalalkan deriska nala aan ka raadino ilaa Yurub, xataa African, xataa South Africa kasoo raadinay. waan kasoo helnay, laakiin fursadda aan ku heli karno idoo inaan taargad Soomaali helno ma heli karno. waxaa nooga fiican inaan taargad Soomaali aan helno. waxaan kaloo ogsanahay dalka Soomaaliya inuu u baahan yahay service oo diyaaradeed inuu u baahan yahay oo dhibaato badan iyo culays badan uu ka jiro. intaasna waa la socono. qorsheyn wuxuu yahay inaan naxayada ka fargarayno gudaha dalka iyo dibaddiisa, Afrika, Aasiya, Yurub iyo gudaha intaba inaan naxayada ka fargarayno insha Allah hadduu leeyahay. مسؤولينك كلا جديسة حلبانا وكل ذي هاي البصور إبلي رمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذي برونتي أنا ما تفرحت قال أي نوتها شرف بدن أي نوتها إن ما أنت ديارته الصومالية وصوت الكسالة سويتشي تمري إن أي ما أنت هلان registration أي برامج نقدان ديارتها عالم ككتيرة أو نسيتها بالصومالية ودولة الصومالية أي سياسة aad bay sharaf noogu tahay. arrintaasina kuma imaan si sahlan, waxay ku timid waddo dheer oo loo maray in arrintaasi ay suuro gasho. oo runtii ugu dambaystii uu ku guulaystay wasiirka gaadiidka Masar Omar iyo hay-adda boolista. dadaalkaas faraha badan ay ku timid oo uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo milkiilayaalka Soomaaliyeed oo iskale labadan shirkadood oo Freedom iyo Hala oo runtii u bareeray inay maal geliyaan sektarkan aan ka midka nahay oo ay u quuraan hanti fara badan inay geliyaan si ay ula mid noqdaan, dalku uu ula mid noqdo dalalka kale oo caalamka ka jiro ganacsatadiisu ay u quuraan inay maalgeliyaan sektarkan. ayagana waa u mahad celinaya. kama sheekeynayno airlinesku waxa ay yihiin horaan wax badan uga hadalnay, laakiin waxay u baahan yihiin weli in la sii garab taagnaado oo dowladdoodu ay sii garab taagnaato. safiiradana ayagana waan salaamaya, waa u mahad celinaya nagala soo qayb galay xafladdan. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad u mahadsanyahay xasan xaashi oo matalaya aerobratriska u bandhigaado AOC. inta aanan ku xijin airline operatorka kale airline operatorska Airline Operators Association la yidhaahdo, waxaan rabaa inaan 2 daqiiqo
daqiiqo siiyo mid ka mid ah aasaasiyaashii airline-ta localka waqtidaada kasoo shaqaynayay aviationka qaybo lahaada kasoo qaatay Mr. Xaaji Dawr. mahadsan yahay agaasimo xogeenka waxaan salaamayaa dhaqanka ugaaska wasiirada safiirada wasiir ku-xigeenka xildhibaanada oo ugu horeeyo Mr. Ibi oo nagala mid ah aviationka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaa ilaahay dhaamacad leh oo maanta lagu gudbiyey airportka international Aadacadde annagoo ka hadlayna ama isu sheegayna diyaarad registration magac Soomaali qaadanaysa soddon kastoo la soo dhaafa aan la arkin maanta ilaaha macad leh hadduu lagu gudbiyey maadaas kabacdi waxaa shaqeeyey ganacsato u horay naftooda iyo maalkooda in magacii Soomaali la soo celiyo oo diyaarad registration magac Soomaali ku duulaysa la keeno. waxaan ka mid ahay amba aan wakiil u ahay Hala Air fikirkii lagu bilaabay xafiis laguma bilaabin fikirkaas laguma bilaabin maqaayad la fadhiyo gaari korkiisuu ka dhashay anagoo gaari saaran aniga Sheekh Ibrahim maantana waxuu marayaa inuu noqdo lambar 2 ilaaha mahad leh waxa aan soo wadno oon hore u sheegay oo ka weyn maanta taad arkaysiina ilaahay hadduu na gaarsiiyo la arki doono oo diyaarad international flight oo adduunyada meel aan ka bilaabi doonto ilaahay hadduu na gaarsiiyo London to Muqdisho maadkaynoo ku jiraan haddii nala arkay in Hala ay shaqaynayso waxaan aad ugu farxnay inaan hadda shirkado kaloo Soomaaliyeedna ay yimaadeen ay Soomaalida ay dhahday Halaba hadday bilowdo anaguna aan bilowdo waa farxad wax la isugu masayro fiican waaye Soomaaliya meel gaarsiin doonta aviationka na waxaan u mahadcelinayaa khaasatan dadka ka shaqeeyey oo ka mid yihiin wasiirka maareeyaha Axmed Macalin oo nin garanaya nin Yurub soo joogay ah oo adduunka ninka dibad ka yimaado qofka ka yimaado wuxuu arkayaa habka loo shaqeeyo agaasimihina wax badan kusoo kordhiyey maareeya badan kusoo kordhiyey agaasime Cali Gacal iyo wasiirkiisa iyo tiimkiisa iyo agaasime ku-xigeenka Cali iyo inta ku-xigeenka joogta aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. annaga Hala Air haddaan nahay waxaan ka shaqaynaynaa inaan gaarsiino Soomaaliya intii la nool yahay inay noqoto diyaaradaha Hala Air magac kale registration waddanka aan soo qaadan doonto waxay qaadan doontaa Somali registration number cid kale inay soo qaadatay baa ma kasugaysiin. Hala Air haddii oo la support gareeyana ay dowladda Soomaaliya ka heshay support waxay noqon doontaa diyaaradda ilaahay ku yidhaahdo number 1 anaga qaadan doonta insha Allah. waana mahadsantihiin dowladdu waa mahadsan tahay wasiiradu waa mahadsan yihiin intii ka qayb qaadata maanta kasoo qayb gasha waa mahadsan yihiin oo waa mahadsantihiin. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xaaji Dawr. markana waxaan rabaa inaan podium kusoo dhaweeyo xildhibaan Cabdiraxmaan Ibi isla markaana wakiil u ah Airline Association-kaas aan hore usoo sheegay. welcome xildhibaan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. على الوزير وزارة التاريخ على وزير الدولة وزارة الرشد الهداية الرئيسة دنيا شان حكومة السجن دنيا شان مدير الديارة دنيا أورف دارك ريسكا واسير الصومالية محمود سفير كدولة المغارة معي سفير دولة قدم سفير دولة شاي جواب لما أنا شرفت له أنا اسمه وجود وزارة الجديد كأنه دولة دعوة
mareeyaha iskaama iyo intii ku timid marti sharafta lagu casumay halkan maqaamkoodii sharaftooda iyo haybaddooda lagu casumay saxaafadda iyo dhammaanba waa salaamay assalaamu calaykum waraxmatullah tacaala wabarakaatu runtii arrimaha kooban oo laakiin jumlada caqligooda ku fadhida ayaan sameeyo oo ay garan karaan keliya inta maandheerayaasha kelmada hore ku cusubtay soomaalida umarina hore wuxuu dhihi jiray maxaa dhihi jiray gargarad iyo indhogarad laakiin waxaan kusoo karna annaga qolka beriyey maxamed seen radaa laga keeno maandheerayaasha waxaa la dhahaa soomaalida inta garashada caqliga badan ay ku zaahid waxaan wasiirka waxaan aaminsanahay mashruucan inuu aada u soo socday in badanna laga shaqeeyey dowladda waxaa cabdillah farmaajo markaas ugu guulaystay not inay cirka soo celiyaan keliya laakiin haddana wixii assistance la socdo o dhan in lasoo dhamaystiray ee ugu dambaysa maanta in Soomaaliya ay ka mid noqoto adduunka inay yeelato registrationkeeda of its own oo 6 Oscar oo wax qabtay lagu faani karo wasaaradda gaadiidka iyo civil aviation Soomaaliya waxaan aad ugu ammaanayaa ka wakiil golaha shacabka Soomaaliyeed in rajay ay qabteen oo jabaankii loo imaday inay sameeyaan inta ku taageeraysa waxaan rajeynayaa in gacan lagu siiyo qolka beri ee wasaaradda hore uu sameeyey waxaan moodaa in markaa shan ilaa 100 sano dhiganta waxaa ka mid a waxyaabaha abstractiga majhuulka ee qarsoonaha ee inta badan aan aad loo sheegin laakiin ka qiimo badan wax walba oo soo qabtay ayay ka qiimo badan tahay in Soomaaliya oo aad ogtihiin 1990 ugu dambeysay in magaceeda lagu doono in maanta haddii ilaahay raalli subxaanahu watacaala lagu doonaayo 6 Oscar oo anagu aanu leenahay ee ka shaqeeyeen ayaga marka waxqabadka waxay ka mid tahay dowladda Soomaaliyeed oo xirsano ee runtii diiradooda ku samaysay oo la qabtay ayay ka mid tahay waa wax lagu faano wax la qarin kara ma aha waxyaabaha runtii ee ummadda Soomaaliyeed maanta ka baaqnaa bay ka mid tahay waxyaabaha runtii ilaa hadda sida mudan way ku jirtaa markaa kartaa arrimaha badda meesha maanta barayso Soomaaliya runtii inay la dabaysan marka hore laga dhigo in seabed la siiyo seabed waxaa la dhahaa ururka badaha adduunka oo United Nations hoos yimaado sida cirka loogu daray badda loogu soo qaataan laakiin waa laga soo bixiyey alxamdulilah alcaalamiin waxaan rajeynayaa in shirkadaha diyaaradaha madaxda ururada diyaaradaha runtii madaxdooda halkan joogta xaashi iyo diiniyo waxaan qabaa in ay ku dadaalaan in aan la fiirinin waxyaabaha iyadoo la qaban karo laakiin wax badan oo qabasho u baahan in la sameeyo waxaan wasiirada shacbiga matalaayo waxaan aaminsanahay in halka culayskiisa uu shacbiga fuulay waxaan codsanaynaa marka culayska shacbiga saaran ee lacagaha iyo macnaha laga qaadayo mataqaana shacabka ee haddana magaca dowladda lagu qaado dowladda ee xasanteeda ku dhaceeya waxaan aaminsanahay inaad wax ka qaban doontid oo dib loo soo celiyo maanta waxaan ka hadlahay milkiilayaasha shidaalka waan ku egeynay 35 sano noqdeen حاولنا نحن شخص منهم هو حساب الله أصل حساب الشعب الغير مع عبد الماجد شعبي المثلات شعبي المسوحي شعبي الجمهور وأنا مسألة إلى رئيس العمال الكويت أظن عيني سو في صراحة كم وزارة أنا مسألة إلى تايلا ما نقول إلى صراحة خميس أنا عيني طور لها لو وشعبي وبلس بدأ يسعر لكن هذا ما يكفي فيده من مسألة كنشتات نيروبي إنسان شغل أنا محمد سؤال لله كده kuna goorkii inay la hesho sakano diyaaradaha aad ay u qaba ma ka xishoonaya ayay sheegaan ay waa bulshada badan oo saara suu saaran yahay marka ayada codsi aniga aan wakiila ilmaanada loo inta ay qabo shacabka Soomaaliyeed ku soo gudbinayna ana aad u mahadcelinayo suuqada soo qayb barnaamijka waxaan rajeynayaa in intooda bulshada ka qaataan inay ka qabtaan horumarka diyaaradaha Soomaaliyeed aad u mahadsan xildhibaan ibni waxaan jecelahay inaan ka tagin aan ka tegin oo doorka mudan ee furka ganacsigu ay ka qaadatay boosaska lasoo maray lagu soo gaaray halkan sidaa darteed waxaan jecelahay inaan gudoomiyaha furka ganacsiga hadda aan siiyo si aan gabagabada barnaamijka u galo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرك وزارة جهادك أركي كولكا وزير كيسا يراسي كيسا مارياها إيربوركا حلبانا شرف فلك وزير دولها وزارة وحبارشة وسفيدة الدارية متشرفة أول وسيلة المعصرة دمانتي محمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد الحضور نقول رئيسنا مهم بليو شركتها الصوماليات هلا يفريدم وكل استيل يقول رئيسنا كاتان تارجت الديار الصومالية الكتورة مكان الحمد لله بليو لكن لو هذا وإنه هذا اليوم وزارة الدروسية هودا يو إكتابيشن أو أيوه كل استيل بحيان معك تارجت كل رئيسي لكن كل سنة شكرا إلى سيوني توعية وحنايا وحاجرتين وشي أبادين سيدي ليش بدأت الكلام والحمد لله إنه صوت وضع سيس أصفر أو صومالي يقولون جبتي إن هودا ما يبقى هو ومرع عاسو شقينا أنا قلنا وحين نوتا قرنبودا إنه صوت نغطي إشارك يعني مرع علي وميل بيانا الحمد لله أنا ومهادرينا وحان روا مركا ودميستي إنا لنهضو قرعستان صوماليا سكتر كإيرلاينز كا لذلك يسوحوا قاري إن أي داتان markii ugu horeysay inay qaataan maxaan ku rahdaa taargooyinkeena waxaan rajeynayaa in la soo celiyo diyaaradii magacii Soomaali Airlines inaan anagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatada iyo ummadda Soomaaliya ay isla leh magacaas inuu soo noqdana waa rajeynaa oo quruxda lagu arko airportkeena iyadana waa rajeynaa insha Allah. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka iskaashaday ee airlineska ah ee wasiirada iyo aviationka iyo maareeyaha iyo booliiska iyo inta soo shaqeyso waxaan leeyahay meel fiican soo gaarsiisay intii idin mar dhameystira aadan ugu mahad celinaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Thank you. mudanaha guutada ee gudta ganacsiga waxaa soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo halkan gudoomiyaha Board of Directors Somali Civil Aviation Authority, Mr. Saeed Borshed. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير وزارة جديد مستر عمر وزير الدولة وزارة تعليم السنة xildhibaanka gaaska Soomaaliyeed gaaska Tamiim xildhibaanada kale safaaradaha hay'adda booliska agaasimaha guud Axmed Macallin iyo ku-xigeenadiisa ku-xigeen iyo maareeyaha airportka Bashir iyo ku-xigeenkiisa Duruus iyo shirkadda fiiladaha oo maanta halkan intii la siiyey laysanka iyo shirkadda laftigeeda hay'adda laftigeedu iyadoo mas-uulka ka ah oo xasan xaashi madaxda ka yahay iyo maxay ahayd safaaradaha iyo eeshana farmano PIB-da mas-uuliyiinteeda iyo shirkadaha shidaalka shuba dowladaha kulli dhammaan waxay ku saameeyeen qalabka sida miidiyaha hawlisku dheeryahay. waxaan leeyahay waxaan ku salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. hada salaad marku waa kooban yahay maanta waa maalin taariikha waa maalin ka turjumaysa hawshii Soomaaliya xafada burburtay waa baaday ilaa iyo in laga soo raray shaqaalaheedii Kenya laga soo raray kulligood dalka ku soo celiyey wixii sharci la lahaa oo kala tana kulli hore loo soo dhamaystiray. aad iyo aad baan gaar ahaan ugu ammaanayaa wasiirka hawsha weyn oo ka qabtay oo dhib badan ahay oo dad badan aakhiro u mudan yihiin laakiin dhamaystirkeeda si sharaf lagu siiray airportkan ay waa kaaga mahad celinayna. waxaan leeyahay maanta ganacsatada halkan xal iyo freedom waxay tahay taariikh cusub. 6 Oscar ama 6 Oscar in maanta dalka gudihiisa lagu siiyey. maanta waxay ka dambeeya xor baynu nahay
iyana cidlaba isdhigan yaan maxay ahayd halayska ilo maanta xooleynu leenahay ganacsatadana waa ku dhiirigelinaynaa inaad soo gashaan inta kaleetana yimaadaan shirkado waaweyn baa jiray oo hadda ka hor hala iyo freedom jiray iyaga waxaan leenahay soo dhawla hawshiina wada waxaana leeyahay dhanna xarunta maanta boorka waxaan ku faraxsannahay in la kaamilay annaga si waxaan ku nimi mar labaad sharciga iyo hay-adda haddaanay ku jirin boorkana waxbaa ka dhinaan lahaa marka gaar ahaan madaxda qaranka ugu horreeya madaxda madaxweynuhu oo ku jiro ra-iisul wasaaruhu oo ku jiro maxay ahayd baarlamaanku oo wasiirku ku dambeeyey haddii aan la samayn dhamaystirka xadhiggaas silsiladaas waxbaa dhinaan lahaa marka gobolka taariikhda uu leeyahay waxaa leeyahay maanta wasaaradda gaadiidku iyadoo civil aviationkeedu isku duwan yihiin aad iyo aad ayaa maanta Soomaaliya horumar kala balahay dadku waa ka tabayeen ilaa iyo waxaan filayaa 2040 baa jiray waxaan qaba kaalinta koowaad inay gashay wasaaradda gaadiidku wixii xaq dibad ka jiray dowladda ha noqdeen sharci ha noqdeen magac wax kasta noqoto gormadii in la habeeyo waxaan filayaa inay buuxdo oo ay ku diyaargarowday inay Soomaaliya maanta ay tahay Soomaali oo wala kala marti u noqonayso أروح أنا والله يسوع عن نبض وأكون كشخصية يقول ليش لا آلية هذا أنا ما أنت اللي راح صديق على كلام اللي رسمي بمو حلية وأمانية وحطبت على بين كرامة وأوصل كماني ركورية واحد صوتي وواحد يسوق بيها ما أنت أمانت اللي مننت العسكر دولة من حضيرها بيها هاي هذا عبد الله فرماجة وانا شايف ما تقدر تسوي هالكلام وتجوره وفره ولسيغاس وباتو لكن وكل في سوسير كتجوان ماري أنا من هذا لقى لا تحاول بعشرة لا يبيه توصل كم شهر ما بعد أما ترى حسينة يا ريكو بدي ردي وفريدم هي حالة كان عصتنا إسكالة ولي نروح إليه يروح هذا واشر فيه ومحل لا يقيا بايتا دولة أجنبي ما يدري شوي وهذه شوي نوعي مات وحكوا حساب تبعنا إنه نارك هناك إسكان هاي لهنا هاي شكل واحد يقول لها إنك كنت نقول قرية وإحنا أيام قرية ولا ركع على كل حال حتى هاي مرح قولك أنا كنت أقول لها وحلاقي هاي فريدم هي موضوع هذا هذه أنواع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم سنة هاي بدومينا Board of Directors of Somali Civil Aviation Authority Mr. Said Marshall waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka halkan u magacaabnaa daahfurka diiwaangelinta diyaaradaha Soomaaliyeed iyo ruqsadsiinta waxaan jeclahay inaan halkan u yeero marka maarayaha guud ee hay'adda duulimaadyada rayidka Mr. Ahmed Macalin Xasan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وزير كجاني كي يدرس تهودا وزير دولها وحبرشة التعليم السري اللي ما تبي سفير رضا وضمان عن صاحب كناي أمستر حمزة حسن إيو أمستر كتشاينا نحن كا أوجس محمود علي أوجس ربط جناحسيا صاحب كن جبارك dhammaan bahda aviationka oo ay ugu horeeyaan ku-xigeenada hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Board of Directors-ka guddoomiyaha saaxiibkan wasiir Saciid Warsheel agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada airline operatorska iyo ganacsatada Soomaaliyeed
maalgeliya waddankoodaas ku dhiiraday inay $1 million waddankooda geliyaan dayuurad kusoo iibiyaan iyagoo rajo ka qaba inay waddankooda diiwaangelin ka helaan dhammaantiin mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullah marka la yidhaah dayuurado marka la yidhaah laba qaybood ayay u kala baxaan qayb waxaa la yidhaha flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay calanka waddanka u buugsan yahay magaca waddankana ku duwan qaybna waxaa la yidhaha general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin soomaaliya inta taariikhda jirto oo jamhuuriyad soomaaliya la yidhaah kama jirin waxaa la yidhaha general aviation oo ay leeyihiin private sectorka waxaa la sheegay oo keliya hal dayuurad oo uu isagu ku duulo isagu leeyahay nin talyaaniya oo la yidhaha mori dayuurad kale oo soomaaliya laga diiwaangeliyey oo baasenger qaada oo taariikhda la xusaa inta jamhuuriyadda soomaaliya jirtay ma jirto dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha xaaji ibraahim hale airline waxaa kaloo keenay shirkadda freedom airline oo dayuuradaha iyadu hore u lahayd laakiin because of civil aviationka soomaaliya ama hay-adda duulista oo aanay u dhammaystirnay shuruucdeedu waddan derisa diiwaangelin ka haysatay marka isagana waxaa ku ammaanaya inuu noqdo ninkii ugu horreeyey ganacsadii ugu horreeyey ee ku dhiirada isagoo waddan derisa ka wata taargo inuu dayuuradiisa u soo dhigo jacaylka waddankiisa awgiis oo dayuuradiisii go-aansaday inuu ka fujiyo taargadii ajnabiga ahayd basaboor soomaaliyeed uu siiyo dayuuradiisa xambali ayaa leenahay freedom airline intaa kadib waxaa jira hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed markii uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la wareegay waddanka maamulkiisa waxay maraysay marxalad ah in hawada soomaaliya oo sidaad ogtihiin hawada soomaaliya waxaa maamulayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay maraysay in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku daashay project noocaana oo hawo wadan maamula adduunka kama jira wuxuu ahaa kii nuuciisa ah oo ugu horreeya 4 jeer ayaa magaciisa la bedelay sababta oo shuruucdii iyo mandate UN ku siiyey iyo dherka inta waqti uu qaatay ay isla jaanqaadi waayey taasna waxay keentay in mar walba magaca laga bedelo markii ugu dambeysay 19 January 2017 20 maalmood ka hor intaan madaxweynaha dooran ayaa shir wuxuu ka dhacay waddanka Hindiya macruuf ayuu ahaa dadka dhan oo Soomaaliyeed way ka warhayaan shirka waxaa Asia Pacific xafiisyada EKA leedahay ayaa kasoo qayb galay waxaa lagu go'aaminayay wixii laga yeeli lahaa hawada Soomaaliya laba option ama labo ayaa miiska la soo saaray mid uu yahay in hawada dhan la xiro wadooyinka laga dhigo one-way system oo hal direction si aanay diyuurad u kulmin iyo in loo qaybiyo wadamada deriska halkaas markuu marayay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la doortay wasiirka ayaa la magacaabay wasiirkii ayaan u sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadda u geeyey halkaas ayaa waxaa ka dhashay go-aanka aan maanta meesha u fadhino oo aan u dhibaaldegayno oo ah hawadii soomaaliya in la soo celiyo in civil aviationka laba qaybood ayaa loo qaybiyaa oo qayb ah adeeg bixiyayaal iyo qayb ku kontaroosha in adeega sidii saxda ahayd sharciga waafaqsaneyd adduunka ku heshiiyey in lagu bixiyo marka qaybta kormeerka samayn lahayd soomaaliya markii burburtay waa laga tegey jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay qaadatay qaybtii adeega bixinaysay oo keliya qaybtaas oo ah qaybta lacagta soo saarta marka soomaaliya waxay ku khasbanaatay inay qaybtii shuruucda ay develop garayso oo hadda uu agaasimo ka yahay maxamed axmed cabdulle oo aayadaha qur-aanka loo akrinayay qaybta air navigation oo adeega bixinaysana cali jaamac cabdi oo xiriiriya loo ah ayaa wuxuu agaasimo ka ah marka soomaaliya waxay gaartay in ay shuruucdeedii dhamaystirto ganacsatada soomaaliyeedna ay ku dhiiradaan in ay dowladasaan ay iibsadaan mahaddeeda waxaa iskale allah kasoko waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirkeeda gaadiidka iyo duulista hawada hadalkeeda ku dheerayn maayo maanta waxay noo tahay maalin weyn Somali Airlines maanta inaan bilowna 1 second nagama xigto sida hal airline ay 1.2 million euro uga soo bixisay ayay Soomaaliya kusoo gadan kartaa local traffic ku bilaaban karnaa adduunka ayna aaminaya kadib
walmeyd nooma jirto shuruucdeena waa loo dhamaystiran yihiin nin kasta oo Soomaaliya oo ciil qabay waddan daris ciil ku qabay maanta ciilku waa ka baxday nin kasta oo Soomaaliya oo lacag haystay oo islaam waddan daris ama u raadsataa taarko maanta ciilku waa ka baxday maanta nin kasta oo Soomaaliya gacmihiisa katiiradii waa laga furay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka furay wasiirkeena gaadiidka ka furay maada ka gaarto bahda hay'adda dowladda waxaan leeyahay hambalyo eernaamiska Soomaaliyeed gacsuus Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo doorka ama roolka ay ku lahayd hawada in la soo celiyo dad badan ayaa rool ku lahaa waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda agaasimo xabeeb oo VIP-da agaasimo airport ka ah waxaan leeyahay agaasimo aad baa u mahadsan tahay roolkaadii iyo kaalintaadii waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Soomaaliyeed oo markii aan diyuuradaha register garaynayn diyuuraddu waxay u baahan tahay in la yidhaahdo in la siiyo waxa loo yaqaan radio license marka radio license oo frequency-ga ay diyuuradda ku hadli lahayd aviation frequency ayaa hay-adda loo reserve gareeyey laakiin hay-addu ma bixin karin laysanka frequency-gaas lagu isticmaalay agaasimaha ayaa loo fududeeyey 2 saacadood ka yar ayuu markuu maqlay Soomaaliya ayaa diyuuradda ugu horreysay diiwaan gelinaysa 2 saacadood ka yar ayuu kusoo bixiyey marka isagana waxaan leeyahay mahad ballan inay ka gaarto dhammaantiin Soomaaliya waa cusub ayaa u baryay maanta waxaan la tartami karnaa civil aviation caalamka kuwa Yurub insha Allah taala xaflada kale ayaan isugu imaan doonaa wax badan ayaa ballanka noogu jira waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo hadalka wasiirkeena gaadiidka iyo dowladda hawada wasiir maxamed cabdullaahi salaad Omar waxaan inoo dhigi doonaa insha Allah taala waxaan inoo dhigi doonaa baylotyo Soomaaliyeed oo diyuuradahan duuli doona oo isugu jira rag iyo dumar ayaa laysiinadoodii maanta bixin doona wasiirka ayaa guddoonsiin doona marka wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم. سير الدولة وزارة البشرة الجماعة نظر ولا شعب من الجو سوتيك سفير نظر لابد الدولة دولة سفير نظر China board of directors xogta ganacsiga walaalkeen gabayga ganacsatada Soomaaliyeed ku howlan dhinaca aviation-ka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed agaasimaha xagga maamulka garoonka ku-xigeenada saddexda ku-xigeen hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed dhammaantiin waa idin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sanadkii 2017 markii xukuumadda cusub la soo dhisay waxaan runtii la xalnay hawo Soomaaliyeed oo waddanka dibaddiisa laga rabo waxaan xalnay dhaqaalihii naga soo geli jiray hawada Soomaaliya oo ku jira gacan hay'ado kala duwan oo ka tirsan United Nations waxaan la wareegnay shaqaalo Soomaaliyeed ee jannada isugu jira oo u shaqeeya hay-ad kale oo ka madax bannaan waddanka alxamdulilah aad arkaysid maanta hay-addu meesha ay marayso duulista rayidka meesha ay marayso arkaysid waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaradii ugu horreysay oo rakaab ah sida maareeyaha uu sheegay rakaab qaado diyaaradii hore lagu sheegay oo buuriga ku duuli jiray diyaarad private ah oo dad qof qaadee diyaaradii ugu horreysay ee rakaab ah ay ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ee register garayso ayaa maanta u dabaaldegaynaa waxaa kaloo u dabaaldegaynaa
in xirfadlayaasha injineerada baylodyada civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka bishii June 18-keedii 2018 waxaan xirnay sanadkii laga maamulaya hawada Soomaaliya ee Nairobi maanta waxay la mid tahay maalintaas oo kale 12 bisha 2021 waxay la mid tahay maalintaas oo kale waxaan soo gaarnay ganacsatada Soomaaliyeed oo raba wadankooda inay diyaarado keensadaan oo ku mashquulsan sidii ay u heli lahaayeen meel laga register gareeyo oo ku wareegaya wadamada dariska oo ay kala yihiin registration qofku sameeya maanta ganacsatada Soomaaliyeed diyaaradaha soo iibsada ama soo kiraysta wadankoodii hooya iyaga oo jooga ay registrationkoodii ka helayaan baylodyada Soomaaliyeed ee laysamada meelaha kale ka haysta soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay dowladda Soomaaliya u baahantahay u dejisay waxay helayaan laysan ay ku duulaan adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay oo pilot oo wadan kasta oo adduunka ka mid ah laga aqbalayo mar aan la kulmay shaqaalaha u shaqeynaya Somali Airlines waxa ugu horeeyay weydiiyeen waxay goormuu soo noqon doonaa 6 Oscar maanta taaganahay 6 Oscar uu soo laabtay Oscar kii ugu horeeyay waxaan u reserve gareynay wadanka qayb ka mid ah Somali Airlines ayaa loo register gareeyay laakiin British shirkadda Hala iyo Freedom waxay ka qayb qaateen soo celinta 6 Oscar waxayna uga qayb qaateen shirkadda Freedom oo ka register garaysan wadan weyn oo dariska ah oo civil aviation-kiisu dhisan yahay ayaa waxay go'aansadeen inay soo xiraan ay dib ugu celiyaan laysankoodii oo yidhaahdeen waa mahadsantihiin maanta wadankeena ayaa registrationkii bilaabay oo la aqoonsay isagaan ka qaadanayna shirkadda Hala diyaaradda ugu horreysay ma aha ay keenaan laakiin waxay hakad geliyeen soo iibsashadii diyaaradaha ilaa iyo shuruudihii annagana laga rabay dowlad ahaan aan soo buuxino si ay diyaarad aan u register gareyn karno markii aan u sheegnay inaan diyaaradaha hadda register gareyn karno oo waxyaabihii nalooga baahnaa international oo dhan aan la kulannay ayay diyaarad soo iibsadeen kuwa kaloo badanna way soo iibsanayaan billahi tacaala allahu akbar waxaan rabaa inaan halkan ka qiro roolka ay runtii ka geysteen xasan xaaji iyo tiimkiisa AOC-ga olada la yidhaahdo usuka ganacsatada diyaaradaha iyo professor Ibi iyo tiimkiisa oo isu shaqo qabta laakiin runtii mar kasta u taagan sidii loo horumarin lahaa duulimaadka cirka iyo waxyaabaha la xiriira dhammaantood runtii aad iyo aad waxaan runtii halkan rabaa inaan aad uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo na siiyey runtii gacan qabasho aad u weyn gacantaas oo sida aniga aan ugu mashquulsanahay wasaaradda iyo hay'adda duulista rayidka iyo isagana ugu mashquulsan yahay juhdi badan ayuu geliyey inaan hawada soo celiyo wuxuu la socday step by step meesha aan marayn wuxuu ka shaqaynayay intaas inay noo soo laabataan wada markay soo laabatay sidii aan regulations u dhisay waxaa la sheegay ganacsatada inay lacag badan gelisay in ay diyaarado soo iibsadaan dowladda Soomaaliya inaan meeshan soo gaarsiiyo regulationska qaybta shuruucda inaan soo dhisno lacag aad u tiro badan ayay ku bixiyeen diyaaradda Somali Airlines hadda la sheegay inaan ku bilaabi karno lacagtaas laakiin waxaan door bidnay horta inaan
dhisno aasaaskeena oo aan dhisno hay'adda duulista rayidka Soomaaliya. runtii waan nooga mahadcelinayaa arrintaasna madaxweynaha mar kastaba taagnaa. Ra-iisul wasaare Roble markii uu yimid isagana wuxuuna tusay in uu la socday markii hore ula socday hay'adda duulista rayidka iyo meesha aan marayno. haddana ilaa iyo maantadan aan ka wada hadlaynay sidii hore loogu sii wadi lahaa oo runtii isagana wax alla waxaan ooga baahannahay kaalmaa iyo wixii isaga uu gartaba nala garab taagno. haddana juhdi badan ku badxinaya sidii eerboorada dib loogu dhisi lahaa eerboorada waddanka. waxaan rabaa agaasimayaasha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya uu ka mid yahay Saciid Ali Jaamac iyo Cabdulle inaan runtii aan u mahadceliyo ayaan runtii rabaa. waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo xirfadlayaasha maanajarada iyo daaraktarada midnaba ahayn ee xirfadooda ku joogo la-aantoodna aynan marnaba aynan suurageli lahayn. dhalinyaro yaryar Soomaaliyeed oon leh innagana waxay training aan siin karna si levelkan aan usoo gaarna aan siinay. Captain Burhan ayaa ka mid ah oo halkan jooga oo la-aantiis runtii ayna marnaba suuragal aynan noqon lahayn in aan maanta 6 Oscar aan soo celino suuragal ma noqon lahayn. waxaa jooga rag iyo dumar tiro badan Fatxiya oo hadda ka mid ah board of directors ay ka mid tahay gabdhaha iyo gabdho kale oo tiro badan oo aqoon u leh civil aviation u jooga waddankooda oo ku investigate iyagana jiraan. waxaan rabaa inaan runtii aan ku mahadceliyo maamulka airportka, maamulka airportada kale ee aan isku xiranahay ee waddanka oo dhan. waxaan halkan ka qorayaa in madaxweynuhu uu ahmiyad ballaaran siinayo sidii airportada loo dhisi lahaa. ra-iisul wasaarahana ee runtii ay arrintaasi ka midaysan yihiin civil aviationka meesha ugu wanaagsaneed ee lasoo gaari karo ayuu hadda soo gaaray. qalab ahaan waxaan ka horreynaa wadamada deriska iyo wadamo badan ayaan runtii ka horreynaa dadka liidgareynaya ku jirnaa. shuruucdiina maanta ayaa waxaan taaganahay meesha ugu habboonay oo diyaaradda 6 Oscar ku duulayso ay ka qaadan karto permit wadamada kale. waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed ee diyaaradaha ka shaqeeya inaan u sheego in aan dib ugu noqon doono heshiisyada aan la leenahay bilateral air service agreement-iga aan la leenahay wadamada kale si diyaaradaheena ay u helaan xuquuqda aan siino diyaaradaha kale oo kale si adduunka heshiiska aan ka shaqeynaya. waxaan rabaa dhammaan inta soo qaban qaadisay meeshan inaan runtii aan u mahadceliyo tiimka halkan jooga VIP-da xabeebka ugu weyn yahay Cabdullaahi iyo gabdhaheena dhammaan immigrationka inta nala shaqeysa wasaaradda caafimaadka sidoo kale iyagana inaan halkan uga mahadceliyo. haddana waxaan gelaynaa qaybtii noogu dambeysay oo ah inaan shahaadooyin siino. maanta waxaa taagantiin xilli ay taariikh aan sameynayo, xilli aan soo celinay 6 Oscar-kii aan soo celinay registration diyaaradaha. sidaad arkaysiina waxaan bixin doonaa laysimadii oo ah markii ugu horreysay hadda sidii civil work intaan galnay la bixiyo shahaadooyinka oo kale. waxaan ku xijin doonaa haddii ilaahay ka raallado mustaqbalka dhow inaan airboorada ka mid yahay airportkan Aadan Cabdulle inaan siino isagana certifications. xirfadlayaasha ayaan hadda soo dhaweynayna halkan noo soo istaagana bilaha. asalaamu calaykum. waxaan jeclaan lahaa maarey ku-xigeenada hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed agaasimo guud Cali Gacal inaad stageka nooga soo birtaan maarey Saciid maarey Cabdulle iyo Cali Gacal wala joogaa inaad stageka nooga soo birtaan kabtanada especially Captain Firdawsi Daawud Siraad waxaan ku bilaabeynaa insha Allah tacaala laysanada kabtanada la bixinayo gabadha Soomaaliyeed Captain Firdawsi Daawud Siraad wasiirka gaadiidka ayaa siinaya.
كابتن مصطفى علي عبد القادر كابتن إبراهيم مهد كونو inta kale ee kabtanada iyo injineerada ah maadaama waqtigu gaaban yahay friday ay tahay waqtigu aad u yar yahay waxaan sameynaynaa si balki ah ayaan waxaan ugu dhiibaynaa mukhtaar xamid inaa u rasiif karayso kabtanada kale iyo injineerada kale inta kale waxaa iskale kabtanada iyo injineerada shirkadda Freedom Airline maadaama mukhtaar uu yahay wakiilkii Freedom Airline asaga ayaa u qaaday markaa hadduu leeyahay congratulations captain intaa kadib waxaa eventigii gabagaba ayuu noo marayaa once again I want to thank the ambassadors from the friendly countries, Qatar and China, especially our friend from China. We would like to share with you the celebration of Lunar Day in your country. Thank you very much. حفلتي تاسين لو كتلتي قبل waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Maaraya Saciid oo xafladan noo soo organize gareeyay waa Maaraya ku-xigeenka ee dowladda saraakiisha Soomaaliyeed ahna agaasimaha eerboorada wadanka oo dhan waa ninka ugu fadhino wadanka inuu horumariyo mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo ayadoo hore wasiirka ugu mahadceliyey kabtan burhaan oo la-aantiis aanay suurtagal noqoteen in Soomaaliya ay dowladda sargarayso xafladeennina waa iga xiran tahay wasiirku way u ogolaaday xafladdii way iga xiran tahay dhammaan dhaqanka iyo kasoo qaybgalayaasha mahad ballaaran ayaa idiin soo jeedinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi Come on.